wararka imaanaya waqooyiga magaalada Gaalkacyo qaybta Puntland ayaa sheegay in xabsi si aad ah loo ilaalinayay oo ku yaala halkaasi ay ka baxsadeen rag xukunsanayaal ah oo qaarkood ka mid ahaa al-shabaab. Saldhigga ay ka baxsadeen raggani ayaa waxaa lagu xiraa dadka lagu helo ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab iyo Daacish, waxaana tirada xalay jabsaday mid ka mid ah qolalka ay ku xirnaayeen lagu sheegay inay ahaayeen 7 ruux. Saraakiil ka tirsan booliska ayaa sheegay in mid ka mid ah maxaabiistaasi baxsatay ay toogteen halka mid kalena uu soo gaaray dhaawac kaasoo hadda xaaladiisa lala tacaalayo. waxaa kaloo ay xuseen booliska inay qabteen maxaabiista isku dayday falkani mise jirin warar madax banaan oo dhacdada xaqiijinaya xilli warar sheegaya in 3 xukunse ay baxsadeen. war ka soo baxaya taliska booliska Gaalkacyo qaybta Puntland ayaa lacag dhan $2,000 dul dhigay 3 qof oo kala ah Xasan Isxaaq Maxamed, Maxamed Cali Maxamed Istakiin, Liibaan Cismaan Cali Madax Kaariyo, kuwaasi oo maxkamadda ciidamada qalabka si dambiyada culus ee Puntland ay xukuntay dil toogasho. waxaa lagu sheegay sidoo kale warka ay soo saartay booliska qofkii soo sheega meel ay ku sugan yihiin aan cid kale ogaan doonin abaalmarintiisana la siin doono. bulshada Gaalkacyo ayaa su'aalo ka keenay waxa fududeeyay in rag dil ku xubaysan ay xabsiga ka baxsadaan, iyagoo codsaday in baaritaano dhab ah arintan lagu sameeyo oo aan sidaas looga harin. 3 ruux oo baadi goobkooda booliska Puntland ay horay u qirtay inay dilal dhowr ah. 3 ruux oo ay baadi goobayaan booliska Puntland ayaa horay u qirtay in ay dilal dhowr ah ka geysteen magaalada Gaalkacyo waqooyigeeda oo ay Puntland maamusho. Cabdi Ibrahim M24 TV Muqdisho.